السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير جربتني من قصة الدنيا كجوجتان كلنتي وناكسن إلي waxaan iga rajaynaa inaad caafimaad qabtaan keena cudurrana Allah caafiyo intii dhimatay Allah u naxariisto ummadda Soomaaliyeed mid ay habeen u tahay mid ay maalin u tahayba dhammaantiin waxaan iga rajaynayaa wax khayr qaba insha Allah maanta ayaan halkan waxaan rabnaa inaan uga tacsiyadeyno ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxday Maamo Fartuun oo hooyo Soomaaliyeed oo YouTuberada ahayd oo waqtigeedii maanta ku eega inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto qof kastaaba mawdka wuu dhandhaminaya oo loo kala horeynayaa maalinba qofaa lasoo qabanaya ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu qabriga u nuuro ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariis jannadiisa naxariistiisa jannada lagu galaayo ehelkii iyo qaraabadii ka tagtana ilaahay waxaan uga baryayaa samir iyo iimaan inuu ka siiyo iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba hooyo Fartuun waxa la sheegayaa inay macnaha u geeriyootay xanuunkan ama xanuunkan u geeriyo ama waqti kale u dhimo ama madaxa ha ku xanuuno qof walba maalin buu leeyahay maamo mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkii ay ka tagtayna samir iyo iimaan uu ka siiyo qof kastaana maalintiisa ma dhaafayo kay daawanaya aniga ganina hadlaya iyo qof kastaaba maalin buu mawdka dhandhaminaya haddii adduunyadan cidi ku waarayso nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku waari lahaa qof walbana saacadiisu u dhimanaya ma laha xanuun ma laha xilli ma laha meel loo raaco maalin kasta ayaa waqtigaagu u dhammaado waa lagugu qabanaya ama hurud ama jiif ama soco ama wax kale ka hadal maalintaas waqtiga saacadaadaasi ay dhammaato waa lagu qabanaya ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo muslina waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay soo duceeyaan inaga waxaan la diiwaa ducada hanu ducayno inuu ilaahay qabriga u nuuro wixii dambiga gashana Allah ka dhaafo inagana ilaahay nagama dhigo kuwa dabadeed fidnooba ilaahay nama fidneeyo ilaahay dhibaatay nama tuso ilaahay wax nafteena halaagelinaya ilaahay nagu marido ilaahay ha u naxariisto maamadaasi ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa fiidiyogan qofku soo gaadho inuu share yiraahdo waayo ummadda Soomaaliyeed ama ummadda muslimkii waxa maanta looga baahan yahay waa ducadaasi baa inaga inala daa inaanu ducayno oo ilaahay u barino inuu ilaahay jannati firdawsi ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun mar labaad iyo mar saddexaad ummadda Soomaaliyeed waxaan ku goorinayaa walaal qof kastoo muslim ah qof kastoo Soomaali ah ma ogid xilliga lagu qabanayo ma ogid saacadaada inay soo jirto ma ogid xilli aad gaari doonto qof kasta waxaan ku goorinayaa inuu Allahiisa ka cabsado oo rabbigiisana u noqdo qofku waxa wanaagsan uu qabanayo ayaa u fiican waayo qofku ma oga xilliga ay naftu ka baxayso adigoo wax wanaagsan qabanaya haddii waqtigaagu u yimaado alxamdulillah qof kasta aniga nafteedaan ka bilaabaya iyo dhammaan nafaha kale ummadda muslimiinta gaar ahaan Soomaalida waxaan ku goorinayaa inay iska daayaan iska dabamarka iyo mushkiladda iyo maxaan ku dhahay isqabsiga waayo ma ogid walaal mara xilli aad gaarayso ma ogid walaal xilli aan gaarayo ma ogid inaan fiidiyoogan dhammayn doono ma ogid xaaladdeedu waxay ku dhammaan doonto ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu xaaladihiina dhan khayr ku dhameeyo wanaag ku dhameeyo karaamo ku dhameeyo inagoo wax fiican hayna qalbigeennuna uu ilaahay u sujuudsan yahay inuu rab waqtiga naga maqaano gudo hooyada Soomaaliyeed maanta geeriyootina Allah u naxariiso iyo dhammaan ummadda muslimiintaba intii dhimatay Allah u naxariisto inta noolna Allah u gargaaro wixii dhibana la dhibta ka saaro wixii cudurna Allah caafiyo ummadda Soomaaliyeed wad maanta u jeedina diina waxyaabaha ka dhacaya waxa kale oo yaranay raacanaya war qof walba adeer naftaada u taxadir ma ogid waxyaabaha dunyada ka jira waa inaad ku baraarugsanaata gabadha waxa la sheegay inay macnaha dad kala qaadeen qatarta ilaahay baa timid waqtigeega dhamaaday laakiin walaalkayga muslimka walaalkayga Soomaaliga markaad qof booqanayso ku xisaabtan xilligan xaadirka la joogo xaaladaha jira iyo waciyada jira ka digtoona naftaada ilaali naftaada intaad ilaalin karto ilaahay baa wax ilaaliye walaalkaana ilaali intaad ilaalin karto adiga wax ilaaliye ilaahay baa wax ilaaliya ilaahay baa wax ilaaliya ilaahay baa wax ilaaliya ilaahay baa awood leh ilaahay baa qaniya ilaahay baa qafuur raxiima ilaahay baa adduunyadan maamula ilaahay baan gacantiisa ku jirnaa ilaahay nama fidneeyo ilaahay mushkiladii dhibaatay naguma furo ilaahay xanuunada inaga jabiyo intay dhimatana Allah u naxariiso
إنا لله وإنا إليه راجعين ومدى الصوماليين وعن كاكتغيا إلهي انتنا عذرنا عافيو وحي عافاد قبنا له السياديو إلهي دباتة داينا قسارو ويدا الصوماليين الله ونحرسيو يديو انتي دمتايبا أمي يا رب العالمين إننا الله خير كاين نقصه إن شاء الله بإذن الله الكريم الله خير كاين نقصه إن شاء الله وقت ونقصنا الله يسكو كانوا وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.